siraha uu leeyahay digrigan waxaa ka mid ah in uu ka ilaalinayo shayaadiinul insi dhibaatadooda, in qof walba oo xumaan kula rabo ilaahay subxaanahu wa tacaala shartiisa ka xijaabayo, in ilaahay si gooni ah kuu ilaalinayo, in ilaahay arrimahaaga kuu fududeynayo, dadka xun iyo dadka dhibaateeya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa qabanayo, in mushkilad walba iyo barobaleeb walba socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa istaajinayo, in noloshaada ay noqon doonto nolol qurux badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh inagu xiran soo dhawaada. walaalayaal, waan filayaa inaad caafimaad qabtaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nimcooyinka noo siyaadiyo, oo ugu horeyso nimcada islaamka, caafimaadka iyo nimcooyinka kale faraha badan. intii walaalaheena ay dhibaataysan, ay xanuunsan, ay kurbaysan, ay murugaysanna alla subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaado. qof kasta muraadkiisa macsi lahaynna alla subxaanahu wa tacaala ha siiyo. soo dhawaada axbaabii, maanta waxaan ka hadli doonaa qisooyin ku saabsan taaju dhikri ama laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. qisadeena koowaad, gabadhan waxay leedahay waxaan joogteeyey akhrinta taaju dhikri kadib markii aan ka arkay gabar ka hadlaysa. markii aan joogteeyey taaju dhikri oo aan wax badan akhrin jiray maalin kasta, alxamdulilah waxay tiri culays isaarnaa ayuu alle subxaanahu wa tacaala iga dejiyey. waxyaalo gariib ah oo aan islahayn macquul ma aha waxaas inay dhacaan ayuu alle subxaanahu wa tacaala ii soo tageliyey. waxaa kaloo jirtay gabar walaalkay uu dhalay oo aan isdagaalsaneyn oo xiriirkeena aad u xumaaday. gabadhaasna way ii imaatay, waa heshiinay. in anay gabadhaas aan heshiino oo wanaag dhexdeena u yaalo runtii waxay ahayd arrin weyn, waayo si xun ayaan u kala go'nay markii hore. alxamdulilah gabar walaalkay dhalay ahayd, ayadaa ii imaatay, i raali gelisay. nolosha reerkana waxay noqotay nolol qurux badan. gabadhan labaad maanta waxay leedahay waxaa dhibaato iga haysatay oo igaga dhacday xagga guurka. waxay tiri guurkii iga soo daahay. qof walba oo guur iga dalbado waan la dagaalayaa. qofkii inuu iska keesho kaansada ama iskala kehad rabana waxaan arkayaa anuu waqti siinayo, anoo danaynayo. laakiin qofka marba maru hadduu idhaho waan ku guursanaya ama guur baan rabaa, waxay tiri qofkaa waan nici jiray, waan ka dheeraan jiray. waxaan dareemay wax aan caadi ahayn inay haystaan oo iga hortaagan oo ii diidan guurka. markii dambe waxaan maqlayay tiri taaju dhikri laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. asagoo faa'iidadiisa laga hadlaayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa awood iska lehe, asiga ayaa igu duway inaan aqriyo. waan bilaabay akhrintiisa. maalintii ugu yaraan waxaan akhrin jiray 1000 mar, yacni raatib ama jadwal waxaan lahaa. maalintii haddaan ugu yarahay 1000 mar ayaan akhrinayaa. kadib waxaan raacin kara waa raacin jira, laakiin 1000kaas waxay ii ahayd joogto. alxamdulilah muddo kooban markii aan waday, ilaahay subxaanahu wa tacaala guurkii culayska iga saarnaa uyuu ii fududeeyey. waa la isoo doontay, waa la ii guursaday. ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu ii siiyey zawj wanaagsan. culayskii iga haystay xagga guurka ee qof walboo rabo inuu i guursado aan la dagaali jiray, aan ka fogaan jiray, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga qaaday. guurkii ayuu alle iigu fududeeyey. maantana waxaan ahay qof la qabo oo reer leh. wiilkani wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu igu caafiyey taaju dhikri. wuxuu yiri salaada subax markii aan tukada kadib, anigoo fadhiyo meeshii aan ku tukaday salaada subax, ayaan 100 mar oo keliya, waa hadda 100 mar oo keliya ayaan dhihi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. meeshii aan ku tukaday salaada subax anoo fadhiya ayaan dhihi jiray intaas 100 mar laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. wuxuu yiri albaaba badan oo iga xirnaa ayuu alle subxaanahu wa tacaala ii furay. waxaan noqday qof noloshiisa ku faraxsan oo jecel. wuxuu kaloo yiri waxaa ihaaya xanuunkii alle subxaanahu wa tacaala waa iga dulqaaday. ilaahay farxad joogta ayuu i siiyey. waxaa i haysatay dhaqaale xumi, ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada risqiga ayuu ii furay oo waxaan noqday qof hantile oo dhaqaale haysta. meel aan filayo iyo meel aan filayninba alla subxaanahu wa tacaala waa iga irsaaqay.
ilaahay caafimaad buu i siiyey, farxad buu i siiyey, xoolo buu i siiyey, albaabo badan oo nolosha iiga xirnaana waa iigu furay. alxamdulilaah. maalin walba waxaan aqri jiray keliya 100 mar. salaada subax markii aan tukado ayaan dhihi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. intaas oo kale ayaan aqrin jiray, si niyad ah ayaan u aqrin jiray ayuu yiri. qisadeena xigta maanta gabadhaani waxay leedahay, gabar aan saaxiibo nahay waxay dikrigan taaju dikri kaga fiicnaatay xanuunka kansarka. xanuunka kansarka waan ognahay xanuun halis inuu yahay oo dad badan sababsadeen, dad badan u dhinteen, dad badanna la yiri xanuunkaas ayaa kugu dhacay oo daawo ma lihid. gabadhaani waxay leedahay, gabar aan saaxiibo ahayn ayaa aad u xanuunsanaysay in muddo ah. dhakhaatiirta markii la geeyey baaritaanadii la sameeyeyna waxay soo sheegeen in gabadhan uu ku dhacay kansar ama uu hayo kansar, weliba kansarkeedii uu faafay oo hadda wax rajo ah uusan lahayn. keliya ay awoodaan inay siiyaan daawooyin kaalmaati ah oo xanuun baabi'iye ah oo xanuunkaas keliya ka dejinayo. waxay tiri gabadhan saaxiibtay ah waxay ahayd qof iimaankeedu aad u sareeyo, marnaba may quusanin. waxay tiri ilaahay subxaanahu watacaala wax walba ii qoro waan ku qanacsanahay. hadduu ilaahay ii qoray adduunyadan inaan sii joogo waan joogi doonaa, hadduu ii qorin waan ka tagi doonaa. waxay tiri isbitaali waxaa iska dhaaftay, keliya waxay isticmaali jirtay daawooyinka xanuun baabi'iyaha ee loo soo qoray. waxayna akhrin jirtay ayay tiri laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ay aad u joogtaysay heer waxay gaartay ayay tiri haddii aad u tagto aysan jaanis kuu helaynin ay kuugu sheekayso ama kugula hadasho, waayo waxaad noqonaysaa qof ka mashquulinaya akhrinta dikrigan. dikrigan ayay laazimtay oo joogtaysa ayay tiri. waxay wadaba muddo waxaa dhacday in xanuunkii ay dareentay in uu tartiib tartiib uga fiicnaanayo oo uu ka yaraanayo. aadayo faraxday inkastoo ay ogeyn waxa sababay. haddana dhakhaatiirta markay tagtay oo baaritaanadii la sameeyey waxaa loo sheegay xanuunkeedii in ay ka soo fiicnaanayso oo hadda 90% caafimaad qabto. ayadoo faraxsan ayay soo noqotay dikrigii ayay sii akhrisay ilaa muddo 6 bil gudahoodna alla subxaanahu watacaala xanuunkii idil kaga caafiyey. shalay waxaa la yiri waxaad tahay kansar, jirkaaga ayuu ku faafeeray jumlih, dhimasho ayaad sugaysaa. maantana ilaahay subxaanahu watacaala xanuunkii idil ayuu ka qaaday. tani waxay ku tusaysaa awoodda ilaahay subxaanahu watacaala iyo qofka markuu alle subxaanahu watacaala tala saarto wax ay dadka leeyihiin macquul ma aha inuu macquul ka dhigi karo, waayo ilaahay xanuunkan asaa marka hore kuu keenay, waxbana kuma aha inuu kaa qaado. marka ilaahay subxaanahu watacaala ayay isku xirtay, sidaas ayay kaga fiicnaatay xanuunkii kansarka oo dhakhaatiirtii iyo dadkii ay u sheegeen in aysan rajo lahayn. alxamdulilaah, maantana way caafimaad qabtaa oo xanuunkii ayuu la ka qaaday. qisadeena xigta maanta waxaan inoogu sheekaynaa wiilkani wuxuu leeyahay waxaan laazimay taaju dikri laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. maalin walba waxaan aqrin jiray yiri 500 mar, marmarka qaarna waxaan gaarsiin jiray 1000 mar. intaas kama badan jirin, 500 ayaan badanaa aqrin jiray, marmarna waxaan gaarsiin jiray 1000 mar. yiri waan aqrin jiray, waxaan soo qaadan jiray koob biyo ah, markaas ayaan ku tafi jiray 500 mar ama 1000 mar ayaan ku akhrinayaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. 500 mar ama 1000 mar ayaan ku akhrinayaa, kadibna waan cabayaa ayuu yiri. alxamdulilaah, ilaahay subxaanahu watacaala wuu igu caafiyey. ilaahay subxaanahu watacaala aniga iyo hooyaday dhakhtarna oo khilaaf yaalay ayuu igu xaliyey. ilaahay wuxuu igu irsaaqay dhaqaale, ilaahay wuxuu i siiyey xaas wanaagsan. alxamdulilaah, wuxuu yiri awal waxaan ahaa qof dhalinyaranimo iyo waxaas inta iska qaado asxaab sun iyo waxyaalo maala yacni ka daba wareega, laakiin alxamdulilah wuxuu yiri ilaahay waa i soo hanuuniyey. waxaan noqday qof masaajidka iyo guriga u dhaxeeya iyo shaqadiisa. ilaahay guur wanaagsan ayuu i siiyey, hoolo wanaagsan ayuu i siiyey. aniga iyo hooyadayna isfaham ayaa dhexdeena imaaday, waayo marar badan hooyaday dhaqamadeyda kama heli jirin. alxamdulilah, samaanta ilaahay ayaa i hanuuniyey oo hanuunkaas ila doonay ayuu yiri wiilkan. qisadeena xigta maanta gabadhaani waxay leedahay maalin walba waxaan dhihi jiray 2000 oo mar
laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. 2,000 oo mar ayaan akhrin jiray ayay tiri. ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad ayuu igu siiyey oo xanuun muddo i daashaday oo muddo i hayay ayuu alle subxaanahu watacaala iga caafiyey. maalin walba waxaan akhrin jiray ilaa 2,000 oo mar ayaan waxaa ku celcelin jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. haddaba dikrigan waa dikri saameyn leh, waa dikri awood leh, waa dikri ilaahay subxaanahu watacaala kaaga xijaabay saaxiriinta iyo caa'iniinta iyo dhibaatada shayaadiinka. ilaahay subxaanahu watacaala wax kastoo ku sixray, wax kastoo ku dhibay, wax kastoo ilkuu geystana ilaahay subxaanahu watacaala kaaga qabanayo. habeen iyo maalinba akhriso, ilaahay subxaanahu watacaala waa kugu caafin doonaa, wuuna kaaga farxin doonaa oo ilaahay subxaanahu watacaala baahiyahaaga ayuu kugu siin doonaa biidnillaah. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. qisaskeena maanta halka ay nooga ogyihiin. haddaa meeshan soo gaartay muuqaalka like saar si walaal badan u gaaro. wassalaamu calaykum.